kulanti wacan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan eegi doonaa kulanka caawa ee finalka El Clasico oo isha lagu hayo labada ciyaartoy ee Ronaldo Araujo iyo Vinicius Junior. Waxaan eegi doonaa kulanka kale ee weyn isaguna caawa jira ee foodistiri doona Manchester United iyo Tottenham kama marna wararka suuqa. Newcastle United oo qaadanaysa Paulo Dybala iyo Juventus oo doonaysa in qaaradda Yurub ay ku soo celiso kabtankii hore ee Liverpool. iyo waxaan eegi doonaa wararka kale soo baxaya haday tahay markii ugu horeysa soo booqato fadlan rukumo kambalelkan fursad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee warbixintii ay soo gaadho. mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal, haddaynu ka horeyno kulanka caawa dunida oo dhan ay ku wada hayso waa kulanka El Clasico oo runtii ay caawa foodistiri doonaan labadaasi kooxood, waana kulan final ah. sanadkii hore finalkan oo kale waa ku kulmeen, waxaan oran karnaa waa kulan ku celisa oo fursad u haysto kooxda Real Madrid inay kaga aarsto isla kulankan oo sanadkii hore ay kooxda Barcelona ay ka adkaatay koobka ay kaga qaaday isla waliba halka caawa lagu ciyaari doono magaalada Riyadh. waa fursad haysto in Carlo Ancelotti kaga aarsto Xavi, Real Madrid ay kaga aarsto Barcelona. markan waxay damacsan Real Madrid koobka ay qaado ay ka aarsato. haddaba kulankan waxaa leeyahay waxa isha lagu hayaa labada ciyaartoy ee Ronaldo Araujo iyo Vinicius Junior oo leeyahay kooda adkaada kulankan ku adkaada ayuunbay kooxdiisuna guushu ay u janjeeri doontaa. runtii Ronaldo Araujo kulamo fara badan oo ku yimaada Vinicius Junior waa joojiyay. Vinicius Junior caqabad ayuu ku yahay ciyaartoyda Barcelona iyo kooxda Barca. runtii iyo falanqayaashu waxa aaminsan Ronaldo Araujo inuu ciyaartoyga kaliya ee joojin kara Vinicius Junior hab farsamaha ku joojiyo siyaabo kale baa ku joojiyay. marar fara badan oo baashi midig uu ka soo muuqday Ronaldo Araujo Vinicius Junior waa joojiyay. haddii aan dib u milicsano ciyaartii March 20 2022 Real Madrid iyo Barcelona kulan El Clasico ay ku kulmeen horyaalka La Liga. Ronaldo Araujo waxa daafac uga ciyaariyay kooxda Barcelona. Ronaldo Araujo, Gerard Piqué, Eric Garcia iyo David Alaba runtii afartaas ciyaartoy ay daafac uga ciyaariyay Barcelona. Barca waxayna fursad u hesheen 4-0 ay ku garaacdo kooxda Real Madrid oo waliba ay ku booqanaysay isla garoonkooda Santiago Bernabeu. kulankii ku xigay ee ahaa October 2022 oo dhaawac ka maqnaa Ronaldo Araujo 3-1 ay kooxda Real Madrid ay ku garaacday Barcelona, halka kulanka horena Barca 4-0 ay ku badinaysay. Vinicius Junior markuu maqan yahay marka uu joogo fursad waxa marka uu Ronaldo Araujo uu joogo Barcelona waxa fursad u heshaa in Real Madrid runtii kabaan sababta caawa diirada loogu hayo labadan ciyaartoy kooda ku adkaada in kooxdiisuna guusha ay u janjeeri doonto. 5 jeer oo El Clasico uu joogay Ronaldo Araujo runtii 3 jeer ay kooxda Barcelona adkaatay. Vinicius Junior oo markii hore dhibi jiray kooxda Barcelona uu ka joojiyay, halka 2 kulan oo Ronaldo Araujo uu joogay ay Real Madrid ay ka adkaatay kooxda Barcelona. Vinicius Junior kulamadaas uu ka baxsaday oo tactiikooyin kale uu laacibkan uu ka baxsaday. hadda waxa leeyahay kooxda labadaas ciyaartoy ku adkaada in bay kooxdooduna ay guuleysan doontaa. Vinicius Junior haduu ku dhaqaaqana way ku deysay Barcelona. haddii Ronaldo Araujo uu joojina si la aaminsan yahay Barcelona ayaa kulankani badin doonta isla wada sanadkan ka qaadi doonta tartanka finalka ee ku kulmeen labadan kooxood. runtii wararka suuqa haddii eegno xidiga diirada u saaran ayaa leeyahay kooxda Newcastle United. Newcastle United suuqa waa ku jirta tan iyo markii Carabuhu ay iibsadeen kooxdani suuqa waa soo gashay. haddana waxa leeyahay Paulo Dybala ay doonaysaa inay qaato oo kooxda Roma ay soo qaato ayaa leeyahay Newcastle United. laacibkan aad ayuu danaynaysaa in dhankeeda uu soo maro. tababaraha kooxda Newcastle United Eddie Howe ayaa waxa leeyahay wax xiriir uu la sameeyay ku guuleystaha koobka adduunka. waxayna doonayaan xiriir waa la sameeyay laacibkan, waxayna doonayaan 12 milyan ay kaga soo qaataan kooxdiisa Roma. oo Newcastle United waxay doonaysaa safkeeda weerarka Paulo Dybala ay ku soo darto ku guuleystaha tartanka koobka adduunka. xirna waa la sameeyay laacibkan waxa macquul ah leeyahay in kooxda Newcastle United ay ku aragnaba isla suuqanba inuu soo wareegi karo. Juventus eedan waxa leeyahay waxay rajaynaysaa in xidiga reer England ee Jordan Henderson 6 bilood oo amaah ay ka soo qaataan kooxdiisa reer Saudi Arabia ee Al Ittifaq. sidoo kalena ay runtii awoodi doonaan in si rasmi ah ay u haystaan laacibkani oo ay u iibsadaanba. Juventus waxay damacsan tahay in qaaradda Yurub ay ku soo celiso kabtankii hore ee kooxda Liverpool Henderson oo runtii hadda ku sugan horyaalka Sacuudiga kooxda Ittifaq.
6 bilood oo amaah ay kusoo qaadan doontaa Juventus mise laacibkan gebi ahaanba waa la wareegi doontaa. Waa wararka ay macquulka tahay in suuqa ay ka fulaan isla weliba suuqan xagaagan oo xidigaha kooxda ka tagi kara kooxa kale tagi kara. Waana macquul in Henderson uu kusoo laabto qaaradda Yurub. Chelsea iyo Liverpool ayaa iyaguna ciyaartoy isku haya. waxaa leeyahay labadan kooxood ayaa waxay danaynayaan inay la seexdaan 26 jirka khadka dhexe uga ciyaara Newcastle United iyo waliba xulka Brazil Bruno Guimaraes oo runtii waxyaabo badan kusoo kordhiyay kooxda Newcastle United tan iyo markii kooxdan kusoo biirayba. runtii waxay tii khad dhexe oo aan caadi ahayn, kubad burburintiisa, kubad haysashadiisa, doonista kubadda sida kubadda uu soo qaadanayo. Chelsea iyo Liverpool ba xadigan khadka dhexe labaduba waa isku hayaan inay qaataan, inkastoo Juventus Newcastle United laftigeeduba aanay macquul ahayn oo ay ku adagtahay in laacibkan uu ka baxo oo iyaduba doonayso in sanadkan ay isku qalabayso oo ay isku sii adkayso in horyaalka si sanadkii horeba natiijadii sanadkii hore ka fiican horyaalka Premier League ay uga keento. runtii waxa la yiraahdo waa adkaansi, laakiin labadan kooxood waa isku hayaan mid waliba xiisaheeda aad ayay u xiisaynaysaa Bruno Guimaraes in ay kusoo kordhiyaan khadkooda dhexe iyo waliba kooxooda Liverpool iyo Chelsea. dagaalkaasi adag ay la kulmi doonaan labadoodu, waxayna doonayaan in isla suuqan ay mishinkoodan ay fuliyaan oo Bruno Guimaraes oo labadaas kooxood midkood ay doono, inkastoo tartan labadan kooxood ka soo wada dhexeeyay ciyaartoy ay ku kala guuleysteen uu jiro. Chelsea waliba tirooyin ciyaartoy Liverpool ay doonaysay ay ka hor qaaday. Manchester United idina waxa leeyahay waxay wada hadal ay la furtay Benfica oo ay ku doonaysaa khadka dhexe ee reer Portugal ee João Neves oo runtii qorshahoodu yahay inay xagaaga la soo wareegaan. in xagaaga ay la soo wareegaan ay Manchester United doonayso. wada hadalna waa la furtay Benfica si laacibkan ay u hesho Manchester United oo khadkeeda dhexe runteedu waa u kaabto. Manchester United oo runtii sanadka iska dara dhacaysa xaalkoodu aanu fiicnayn, xaalkoodu uu yahay allo u sahal oo runtii kufidooda iyo waliba guuldarooyinkooda sanadkan aad u batay. runtii khadkooda dhexe iyo suuqan aad ay u gali doonaan waa laga filayaa. haddaba iyaguna waxaa jira kulan weyn oo isagana indhaha lagu hayo oo tartanka horyaalada isbedelo weyn runtii ku sameyn kara oo labadaasi kooxoodba mid walba ay ku dadaalayso. waana kulan weyn waa Manchester United iyo Tottenham. Manchester United oo runtii aad sanadkan u taag daran oo kaalinta 9aad tartanka ku jirto 31 dhibcood ay leedahay, halka kooxda hogaaminaysa Liverpool ay 45 dhibcood ay leedahay, farqi 14 dhibcood oo kaalinta koobaad runtii ay u jirto. waxaa ciyaarta Tottenham oo iyadu ku jirta kaalinta 5aad 39 bay leedahay, kaliya 6 dhibcood ay horyaalka laga hayaa, waxayna doonaysaa in kaalmaha sare ay u dagaalanto Tottenham iyo Manchester United. waa kulan weyn inkastoo labaduba ay yihiin laba kooxood oo waaweyn. runtii waana kulan ay caawo foodeysan doon labadaas kooxood oo isaguna kamid ah kulamada caawa isha lagu hayo. waxayna wada ciyaari doonaan 7:15 labadani kooxood tartankan horyaalka Premier League. kulankan aad ayaa indhaha lagu hayaa isbedelka horyaalka ay runtii isbedel ku sameyn doonaan. Tottenham ayaduna si ku meel gaara kaalinta 4aad sii qaban doonta oo Arsenal dhaafi doonta. Manchester United ayaa runtii sii dhaadhici doonta oo kaalinteeda 9 xitaa la sii luma doonta. waa kulan indhaha lagu wada hayo. hadda waxaa leeyahay kadib markii la arkay kulankii xalay inaga yaabsatay kooxda Manchester City oo soo laabtay xidigeeda khadka dhexe ee Kevin De Bruyne. runtii xitaa De Bruyne soo laabtay daqiiqadii 74aad uu dhaliyay goolka barbaraha. runtii waxaa leeyahay horyaalka sanadkoodii 4aad ma ku guuleysan doonaan oo hadeer muu tartami doona. markii horeba khadka dhexe ay runtii ka dareemayeen horta tan iyo bilowgiiba waa ka maqnaa De Bruyne, khadka dhexe ay ka dareemayeen liidnaan, ciyaartoygan waa tabayeen. xaqiiqatan Kevin De Bruyne dib waa u heleen, wuxuu ka sameeyay arkin khadka dhexe sidii u burburiyay goolka halkuu ka toogtay, goolka barbaraha uu keenay. markoodii 4aad ma ku guuleysan doona ayaa lagu dooday durtaba oo soo laabashada Kevin De Bruyne ee kooxda Manchester City ma ku guuleysan doontaa bal xaqiiqatan waa doodaha taagan ee hadda lagu dooday kadib markii ay daawanay kulankii xalay ee Newcastle United ay runtii ay 3-2 ay ka adkaatay kulankii soo laabashadaha. laba dhinac laba jeer soo kala laabteen, laakiin guushu ay gaadhay Manchester City
ma ku guuleysan doontaa markoodii afraad kadib waxaynu aragnay xalay Kevin De Bruyne sidoo khadkeedii dhexe ee kala daadsanaad u muuqatay uu uga xaliyay kooxdiisa Manchester City warkan ciyaar wanaagsan saaxiibayaal inta kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum.